kulanka oo looga hadlayay arrimo la xiriira sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah saraakiisha laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug ku-xigeenka xeeralyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka gaashaanle dhexe Cabdullaahi Maxamed Muuse Kayse ayaana ugu horeyn kulanka ka hadlay waxa uuna ka warbixiyay ujeedka kulanka dhammaan waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha amniga ee gobolka galmudug in laga hortago falalka amni xumida ah ee ka jira gobolka oo ay wadaan shakhsiyaad la yaqaan oo ay ku jiraan ganacsato iyo kooxo kale oo gacan siinaya ururada argixisada ah ee ku sugan qayb ka tirsan gobolka galmudug maamulka galmudug waxaan ka digaynaa in kooxahaasi oo caadaystay inay gacan siiyaan kooxda argixisada ee nabadiidka ee al-shabaab gacan dhinac ganacsi iyo dhinaca isgaarsiineed iyo dhinaca gaadiidba u fidiya in tilaabo sharci laga qaado lana horgeeyo maxkamadaha awoodda u la qaadista dacwadooda taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaanle sare Maxamed Nuur Cali iyo taliyaha ciidanka danab qaybtooda galmudug gaashaanle Mukhtaar Cabdi Aadan ayaa iyaguna sheegay in talaabooyin culus laga qaadi doono cid kasta oo loo aqoonsado inay xiriir la leedahay maleeshiyada argagixisada al-shabaab waxaan qaadanaynaa amarkaas iyo qodobadaas waxaan horgeyn doonaa cid allaale ciddii falka ku dhaqaaqday inaan sharciga horgeyno waxaan halkan anugu digniin gaara uga dirayaa hay'adaha shirkadaha dhammaan cid kasta oo shaqaale qoranaysa inay la xiriiraan ciidamada amniga si loo ogaado qofka ay qoranayaan waxa uu yahay asalkiisa ama uu ka shaqeynay in dadka reer galmudug ama dadka Soomaaliyeed ee shacbiyada ah ee nimankan argagixisada gacanta siiya in xeer ilaalintu go'aanka ay ka gaartay aan fulin waxaan ballan qaadaynaa dabagalaynaa fulinaynaa nimanka cadawga gacanta siiya ama biyaha siiyaan ama caanaha siiyaan ama gaadiidha siiyaan ama talaha siiyaan ama hubha siiyaan ninkii inta gaalkacya ka taga xarar dheer taga inuu ka mid yahay shabaab taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Xogolof Qooje ayaa ugu dambeyn ka hadlay qorshayaasha ciidanka amniga uga degsan cid kasta oo gacan ku siisa kooxdaasi falalkooda guracana waxaan rabaa inaan iftiimiyo halkan 2 bilood ka hor dilal baa ka dhacay dilalka saraakiil baa lagu dilay saraakiisha la dilay waxaan aaminsanaa dadkii dilay dadka hadda u tagay xarar dheere shirka u tagay inay doonteen saraakiishii ay la dilay brimiyadoodii waxay ka shaqeeyeen inay soo dhaweeyaan ka wax dilahaya inay baabuur siiyaan inay taageeraan marka macnaheedu waxa weeye dadka meesha tagay ee u tagay inay shabaab iyo argagixisada ay la soo heshiiyaan ay inay tahay falalkii dhacay inay ayagu lug ku lahaayeen waxaan halkan ka cadaynaynaa haddii ilahayd maantay oo taariikhda saraakiishu wada sheegto 19 bishii 9aad oo maalin khamiisa laga bilaabo maantay cidda falalkaas oo dhan ku lug lahayd in ciidamadu ka howlgali doonaan Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo